السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أن muusku wuxuu ka mid yahay khudaarta ugu caansan looguna jecel yahay adduunka oo dhan, waxaanay dhakhaatiirtu in badan ku celceliyaan in cunitaanka hal xabo oo muusa xilliga subaxdii ay ka dhigan tahay tallaabo aad u qaaday dhinaca caafimaadka. waxaana muuska ku jira borotiino iyo faytamiinada kala ah faytamin C iyo faytamin B6. waxaa kaloo muuska ku jira maadooyinka calciumka, carbohydrate-ka, xadiidka, fosfoorka, potassiumka iyo magnesiumka iyo kuwo kaleba oo jirkeenu u baahan yahay. haddaba in la joogteeyo isticmaalka xabad muusa subaxda hore wuxuu jirka siiyaa karti iyo firfircooni xilliga maalinimo, waxaanu dejiyaa una fiican yahay dhammaan neerfayaasha jirka. waxaanu sidoo kale u fiican yahay caafimaad qabka wadnaha, isagoo dawana ka ah inuu kor u kaco xaddiga kolestaroolka ee jirka ku jira. waxaanu sidoo kale u fiican yahay caafimaad qabka lafaha, isagoo xoojiya dheecaanka ay ku shaqeeyaan kala goysyada jirku. waxaanu xoojiyaa difaaca jirka, waxaanu u fiican yahay dheefshiidka, waxaanu ka hortagaa dhiig yaraanta. isla markaana isticmaalka subaxda hore ee xabad muusa wuxuu ilaa xad u fiican yahay ruuxa dumar ah ee uurka leh, isagoo wanaajiya caafimaad qabka hooyada. waxaanu ilmaha caloosha ku jira ka caawiyaa helitaanka oksijiinta ilmuhu u baahan yahay. aad baad u mahadsantihiin. wajazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.